مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan salaamayaa salaadiinta sharafta leh oo xafladan isugu yimi. waxaan kaloo salaamayaa dadka reer Puntland iyo wixii la maqlayaba. waxaan salaamayaa saxaafadda dadka u adeegaysa oo halkan isugu timi. waxaan ku salaamayaa salaanta la isugu duceeyaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib anaa hadlay looma hadlay haddii hadal haray baa la hadlaa baa layidhi. hadalkii wuxuu ahaaba waa la yidhi nurxunkiisii iyo ujeeddadii laga lahaa iyo wixii uu ku habboonaaba rag salaadiina oo carab cidaadan oo fahmad leh baa siday ahayd u sheegay. keliya waxaan taabanayaa Puntland asaasiyaasheedii baan anugu ka mid ahaa. shirkii ugu horreeyey oo la oran jiray wadatashiga anaa shir guddoon ka ahaa. madaxweynihii hore cabdiraxmaan faroole iyo abshir muuse nin la oran jiray allahu naxariistoo dhintay baa laba ku-xigeenii ahaa. bal horta waxaan maqashiinayaa dadka Puntland daneeya ama u dhashay ama ka soo jeeda ama u danqanaya shirkii maalintaas shir la mida baanu ku baaqaynaa in la isugu yimaado. haddaan sidaa la helin Puntland waxay maraysaa maalintaanu ururinay oo sida isugu ururinay waxa la isku toltolo oo kale maalintii meeshay maraysay bay maanta maraysaa. waxaa lagu khasban yahay in sidaas oo kale la isugu yimaado. Puntland in loo gurmado caqli iyo cilmi iyo cuud wixii la awoodo sidii maalintii hore oo kale arrinta Puntland in la isugu yimaado. waa ku baaqaynaa waana soo dhawaynaynaa cod dheerna waa ku tilmaamaynaa. sababtu waxay tahay waxa la wada og yahay oo mu'amaraadka aad moodid oo nimankii mas-uuliyiinta sheegtay oo dadka ka dhashay oo loo dhiibay masiirkii Puntland oo la yidhi 5 sano khilaafaadka guddiga khilaafaadka tihiin dadka baarlamaanka noqonaya nidaamku siduu u dhacayo cidda xaqa leh idinka mas'uulka ah oo awoodii lagu aaminay siday u dayaceen iyo meeshay dhigeen ilaahayna waa kula xisaabtami doonaa. Puntlandna waa kula xisaabtamaysaa. wax laga harayana maaha wax la ilaawayana maaha. taas waa qodobka labaad waxaanu cod dheer ugu sheegaynaa arrinta Puntland inaanay xalaal ahayn oo baarlamaanka lagu sheegay. Puntland dadka u dhashay waa u sheegaynaa, dowladda federaalka waa u sheegaynaa, beesha caalamka waa u sheegaynaa. wax xalaal ah oo xaq ah oo dowlad lagu hogaamin karo ama meel lagu mari karo ma aha baarlamaanka soo baxay. markii laga reebo hadday u badato oo aan been iska ilaaliyo 10 qof waa noqon karaan. 10 qof waa noqon karaan. dadkii ay ismadu soo xuleen oo u shaabadeeyeen oo saxiixoodii ku yaal 10 qof waa laga helayaa. inta kale wax jira maaha. madaxweynuhu gacantiisu ku qortay sidii askartii lagala bixi jiray dadka inta la safo la oran jiray ka ii soo saar shacabka. saasaa waagi hore loola bixi jiray. ninkaasaa 2 mitir joogay ii soo saar. waxay noqotay kaasaa ay siinaya oo miskiina oo aan ilaahayna ka baqayn cadaaladna aqoon aniga yaqaan ka ii soo saar. sidaas lagu qoray oo run ah. bal hadda day wali adduunka qof lagu qaato caqli xumo iyo daciifnimo iyo xoolanimo waa inoo koow oo meherad loo dirayo. anigu maaha inaan caayayo dadka laakiin dadka ilaahay baa kala fadilay oo nin walba ra'yi u yeelay oo nin walba cilmi siiyey oo nin walba garasho siiyey oo nin walba midab siiyey. dadka uu qaatay dadkii Puntland u noqon lahaa xeer dejin oo lagu aamini lahaa oo 5 sano si xalaal ugu adeegi lahaa oo danyarta iyo caruurta iyo dumarka iyo ciroolaha iyo shaybka waxa weeye ay shafiicsan lahaayeen ma aha oo ma aha mana aqbalayno. wax aqbalayaana ma jiraan. taas waa qodobka labaad waxa weeye aami fooska in badan buu Saciid Cabdullaahi Deni wax aan xaq ahayn ku kakabiyay
oo dhibaato isagu u geystay iyagu waa dadaalayaan waxaan ku wargelinayaa dadka maanta sharaxan buu ka mid yahay Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne maaha meeshuu idinku kakabin jiray yuu idinku kakabin caqligiina ku shaqeeya musharaxiintu way isugu keen mid wuu dhacay madaxweynenimadii waa ka dhacay wax ilaahay abuuray oo gaar oo aad isaga ugu xeebanaysaan ma jiro idinku wuxuu yiri ninkii hooyaday guursadaaba waa adeerkay idinku dawladii dhalataba ciidan baa u tii cadowga ilaalinaysaan wixii qaldan baa qabanaysaan sidaas aad u adeegaysaan ducana waa helaysaan khidmadiina waa helaysaan idinkana intaasaan idin leeyahay waxaan kaloo leeyahay cid kasta oo Puntland u dhalatay nabadda ha iska xilsaarno nabad baa naas la nuuga leh nabadda ha iska xilsaarno nabadda ha iska xilsaarno taas waa dardaaranka ugu dambeeya dadkaasi nabaddu shafiicsadaa qofka qaladka ku socdana waa la wada arkayaa qori farharraal iskaga qabanaya cid u khasbi karaa ma jirto cid u ka dudbooli karaa ma jiro ma garatay waxa weeye walaalka laba goor gacanta looma ritaalay Siciid wuxuu ku budoobay maalintuu federaal aadayay baa indhaha laga dadbay oo la yiri warina ka daayay markii la arkay soo degdegsan yahay war yuu ina jiirinayna ka daayay war u daayay war ha qaato saacad baa 16 qof oo reer bariya saacad uu kula soo baxay waa loo daayay garow uu ku darsaday gaalkacyuu ku darsaday qarnuu ku darsaday faraha laga qaaday wuxuu u qaatay dadku inuu yahay khaayis nacaal oo jiifa oo aan garasho lahayn oo wax iska dhicin karin oo cod lahayn oo bini aadanka ka duwan ha looga hindisay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته